السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. idilkiin baa khayrtana daawanaysay ku soo dhawaada barnaamij gaar oo aan ku eegi doono socdaal wafdi uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado ay dhawaan ku tageen boholgaras oo ka tirsan gobolka Gado. wafdi ballaaran oo hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado Xasan Garbaharey ayaa gaaray boholgaras oo ka tirsan gobolka Gado. waxaana socdaalka wafdiga ku weelinayay sarkaal Ethiopian oo ka tirsan AMISOM iyo mas'uuliyiin kale. socdaalka wafdigan ayaa waxa uu ahaa gurgalida xaaladda amni ee boholgaras iyo deegaanada ku xiran iyo ku dhawaaqista maamul cusub oo ka yimid bulshada deegaanka. waxaana aad u soo dhaweeyay wafdigan qaybaha kala gedisan ee shacabka kuwa uu wafdiga ku sugayay afaafka hore magaalada. soo dhaweynaya mahadcelin kadib wafdiga ayaa waxaa loo gudbiyay guriga martida kadibna munaasabad ayaa lagu qabtay barxadda iskuulka hoose dhexe ee boholgaras. waxaana mas'uuliyiinta booqatay boholgaras ay bulshada deegaanka ka dhageysteen baahidooda iyo waxa ay u baahan yihiin inay helaan. booqday oo aan leeyahay waa waqti taariikhi ah oo ku habboonaan inay soo booqdaan khaasatan waxaa dhadhan gaar inoo leh in madax Jubbaland ay inoo timaado. Jubbaland madaxay inay maanta inoo timaado waxaan uga mahadcelinayaa gudoomiye ku-xigeenku inuu noo ballan qaaday in weegagan soo socda madax ka sarreysa ay iman doonto uu keeni doono. aad baan kaga mahadcelinayaa in badan. tan kaleeto qodobka ilaa waxa way wax yar haddaan ka taabto taariikhda deegaankan waxaan malanayaa waxaa muhiim ah bulshada nolosheeda laba shay baa asaasi oo tiir dhexdu ah. marka koowaad waa nabadgelyo, marka labaadna waa midnimo iyo aragti midaysan oo bulshadu ay leedahay. deegaankan boholgaras dadkiisu waa kuwa aan idinku soo dhaweynayn inay leeyihiin dareen nabadgelyo. 23 sano deegaankan xabad kama dhicin. 19 baa ugu dambeysay in barnaamij ku saabsan iska horimaatan beeleed oo kii u dambeeyay jabaq u dambeysay ahaa in dadkanu ay dareemaan wixii ka dambeeyay dad nabadeed bay ahaayeen oo iskood u taagan oo isu u taagan inay deegaanka ay joogaan ka ilaaliyaan haday naftooda tahay iyo haday dariskoodaba tahay wax la yiraahdo nabadiid. nabadgelyada saasi hooyo ugu yihiin xagga midnimadooda waxaad ka garanaysaa basharka hadduu saminimo iyo uusan lahayn fikir midaysan uma suurtooda nabadgelyo. walaalaha iyaga dariska dhan walba ahadan dhinaca Ethiopia dhinaca gobolka Gado iyo dhinaca kale maxuu ahaa Bakool intaba dariska inaga ah 23 sano nabadgelyo iyo midnimadaas iyo Gado wada fadhigaas aan ku caanamaalayna. waa dad taariikhdooda saas laga dheehan karo nabadgelyo. Allahna wuxuu soo gaarsiiyay in cadawgan maska uu ku sheegay ninka la yiraahdo Nuur Koofi Ilaahay subhanahu wa ta'ala bana wakaal minuu saxarada soo galin. hada kadibna waanu ka taxadaraynaa in fara badan. hada on islaaha waliba sidii waad ka fiicnaanaysaano maamulkii Jubbaland oo ay dhax fadhiyo oo islaana saaca wixii ka dambe waxa dareemay doontaan tasiilaadkiisa iyo taakuladiisa. waan ka dhiiranahay waana sii wadayna bidin Ilaahay Kariim. waana ku qanacsanahay inay sanamadu si noogu caaga dhiganta iminka ay ka sii fiicnaan doonto. qodobka labaad raba inaan wax yar taabto waa xagga horumarka. horumarka kale inina waad ku soo aragteen wax qof bashar oo shacab oo rayida uu samaysan karo. waa isku dayday bulshadani saad u ballan qaadeen waxaan rajaynaynaa waxa ka dhiman kaabayaasha adeeg bulsho ee dadka shacabka ee deegaankan degan baahidiisa inaad idinkana qadar waxa laga bilaabo inaad qadarka ka dhiman kordhin doontaan bidin Ilaahay Kariim. iskoolkii xarunta caafimaad saldhiggii booliska xarunta maamulka degmada intaba si toos ah gacmaha ugu dhisteen dhaqaalaha ugu dhisteen iskaaga ugu dhisteen iminkana adeeg bixinayaan intaba. wixii tabartayada ka badan siga rigaga dhulka qodi lahaa iyana insha Allah waxaan rajaynaynaa ballanqaadkina boqoshooyinka inay ku hirgeli doonaan. qodobka ixiga waxa weeye aaminsanaanta shacabkan uu aaminsan yahay kamino ahaanshaha maamulka Jubbaland. maamulka Jubbaland ee hoostaga dawladda federaalka aad baan ugu qanacsanahay waana soo dhaweynaynaa waana halka ugu dambaysa
جغرافي أهان كل كده عم بيجا اللي يراهدو دقمة بولغرس أي دعوة حدود كان إثيوبيا قبل كافلير كما أنا تشاولي قبل كلا كم من عن كريسان مركب في مسافة وكان شهر أما كسماي وحاملين ما لها وقف وكسماي معمول كان شيء دون شيء كرا كيلومتر هان مركو درارين يوينا نقون دونا رجينا هذانا ساسي تاي بانكو قناصنين كقناصنان تنادنا waxaad ka dheehanaysaan indhaha iyaga iyo mugga iyaga iyo sida aan ugu qanacsanahay calaamadan isku korsaareen subax maanta calanka loo ma jeedaan waxaanu codsanaynaa marka waan ka codsanaynaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe iyo madaxweyne ku xunaysa dhamaan xukuumaddiisa kuwa heer gobol in la joogo ay ka mid yihiin inaad kasban doontaan sida annagu idinkoo noo imaan u kasbanay aragtidiina iyo jacaylkiina qalbiga shacabkana kasban doontaan ma rajaynaa way ku xisaabtamayaan inaad u diyaarisaan kaalinkooda siyaasiga haday tahay xildhibaan haday tahay wasiir haday tahay maamul gobol haday tahay waxa ay mudan yihiin ee xuquuqda ay leeyihiin shacabka gobolada Jubbaland ay leeyihiin oo dhan waxaan rajaynaynaa in fariintaas ay maanta wixii ka bilowdo si fiican u saameyn doonto sida uu noo sheegay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Cabdullaahi Sheekh gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka oo horna ugu sii mariyay oo uga dhowreenay fariinta madaxweynaha nooga imaan doonto aad baan uga mahadcelinaynaa xukuumadda Jubbaland ee jecelahay kelmadaha ballanqaadka ee u ballanqaadeen bulshada reer Boholgaras inay degmo tahay inay ku qadariyeen inay u imaanayaan iyo inay la qaybsanayaan waxa ay maanta qabaan ballanqaadkaas waan ka mahadcelinaynaa waxaan u sheegaynaa u ballanqaadaynaa inaan annaguna u samayno diyaar garow munaasabadaasi diyaar garow aan ugu diyaar garoobayno in arrintaasi weynaynteeda iyo qadarinteeda iyo ku faraxeeda awgeed caawa inaad diyaar garow bilaabayno waxaan ka codsanaynaa xukuumaddu waan ka rumaysanay waana ka qaadanay toddobaadkan oo dhan waxaan ahaan doonaa kuwii ku mashquulsan soo dhaweyntaas insha Allah inay suurtoobi doonto oo isu imaan doono oo kala dhergi doono oo calanka hoostiisa aan calooshaana isugu xaaran doono ku dhergi doono waan filaynaa wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh iyadoo oo maanta maalin qaali ah tahay oo maalin munaasabadeedu ay aad u qeyb badan tahay maalin kheyraadna ay tahay ayaa waxaad moodaa markii wax fiican la helo warku ka halaabaa marka aniga hadda farxad baa maanta yaa warku iga halaysan yahay waxaan aad ugu faraxsanahay dadka sharafta leh madaxda leh heer gobol iyo heer degmada leh culimada leh dhalinyarada leh qaybaha bulshada oo dhan ay ka kooban yahay meeshan saaka fadhiyo ayaan macnaha waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaan kadib wixii la dhihi lahaa waa la yiri waxaanu isfaraynaa marka hore nolol xagee jirtaa nolol bahashilada xagee jirtaa nolol nabad bay xagga ka tahay nabad haddii la helo nolol waa la helayaa waa inaan dhammaanteen nabadda ka qayb qaadanno see looga qayb qaadan karaa waayo marka waa in ninka maamulka ama maamulka la dhistay la adeeco maamulkana si daacada oo sinaan leh ay ummadda ugu adeegaan maamulkana la taageero si wanaagsan macnaha barnaamij loola shaqeeyo sidaas waxaan ku heli karnaa marka waxa aan rabnay nolosha aan sheegayno tooga in la xiro waxbarashada inaan u helno tasiilaadkeedii caafimaadka waan ognahay minshaarka ka maqnaay aan u helno daawadii waxa ay bulsho u baahneed markaas heli karnaa markaan is adeecno maamulka anaga aan taageerno ismaqalno nabadgelyada aan gacanta ku qabanno waxaa marka maanta fursad hadda ka hor aan soo marina in maanta gobolkii Gado madaxdiisii ay maanta xaadir ku yihiin degmada Boholgaras waa arrin wanaagsan oo guul ah noo soo timid ayagana waxaan ka rajaynaynaa gobolka Gado waa gobolka ugu kheyraad badan wabiyaal baan leenahay xuduud baan leenahay waxaan leenahay xoolaha gobolka ugu xoolo badan inay ka shaqeeyaan gobolkaas cid kastoo ku nool sharaftiisii iyo wadajirkiisii in lagu soo celiyo markaasaanu la xisaabtami karnaa gobollo kale marka anagu midowno gobol ahaan u midowno deegaan ahaan u midowno ayaa waxaa xisaabtan geli karo inaan la xisaabtanno gobollo kale wax yar markaan ku soo laabta taariikh Boholgaras waxaan filahayaa
laba qarni oo dhow baa la degan yahay dadka degan asal ahaan dad ehludiin ahaayeen oo dariiqo oo ehludiin oo culimada hogaamin jirta haddana sidii culimada hogaamin waxaa keenay inaan nabad helno caqiidada faraha badan oo isbeddelkaana aysan saameyn nagu yeelanin waa asal ahaan dadka halkaan deganaa inay dad ehludiin ahaayeen haddana yihiin sidoo kale waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha boholgaras cabdiraxmaan aadan khaliif iyo mas-uuliyiin ka tirsan wafdiga yimid deegaanka oo uu ka mid yahay sarkaal lagu magacaabo garro oo ka tirsan amisom waxaana iyaguna ay ka hadleen ammaanka boholgaras iyo inay muhiim tahay inay hesho gargaar samafal iyo arrimo kaloo badan dhammaantiin waa idin salaamayaa shacabka kala duwan ee degmada boholgaras iyo marti sharafta iyo mas-uuliyiinta heerka gobol ee noo imaatay iyo ciidamada amisom shirkan galabta wuxuu ku saabsan yahay lambar 1 shacabka boholgaras iyo mas-uuliyiinta jubbaland nooga imaatay iyo amisom qodobka labaad doorka shacabka ay ku leeyihiin shirkan galabta aan isugu imaanay iyo baahidooda ay ka hadlaan baahidaasoo ku saabsan deegaanka baahidiisa sidaad wada ogtihiinba mas-uuliyiin heer gobola uu hogaaminayo sidaad wada ogtihiinba hadda ka hor ma jirin isku xirka maamulka jubbaland iyo degmada boholgaras markaan sii dulmaro xubno mas-uuliyiin heer gobol ama mas-uuliyiin u sarreysa jubbaland ay imaata maanta waa kow degmada taasna waxay caddaynaysaa horumarka degmada u soo hoyatay markaan ka hadla baahida deegaanka ama dhibaatada ka jirto deegaanka waxaa ka jirta dhibaato aada u ba'an oo ay ka mid tahay dhanka waxbarashada dhanka caafimaadka iyo dhanka biyaha iyo dhanka wax soo saarkaba inta waxaa looga bixi karaa in mas-uuliyiinta nooga timid gobolka gado ama jubbaland ay baahida deegaanka ka jirta inay nala arkaan ayaan ku casuunay dadka taleefanka uga soo qayb galay fariimaha aan ku diirsanay noo soo dhiibay isagana waan u mahad celinaynaa waana ka dhursugaynaa inuu ka rumeeyana ilaahay baan ka rajaynaynaa waxaa kaloo idiin sheegaynaa oo hal fariin aan idinkugu darayaa shacabka reer boholgaras culamaa udiinka ururka dhallinyarada hooyooyinka dhammaantiin sidii la wada sheegay in horumarka iyo nabadgelyada loo istaago waxaa kaloo fariin khaasa u dirayaa dadka u dhashay degmada boholgaras jaaliyadda dadka deegaanka in deegaanku uu u baahan yahay waxqabad in wax lala qabto shacabka in degmada bilicdeeda la hagaajiyo waxaa kaloo u sheegaynaa degmada boholgaras anagoo ku hadlaya afka shacabka iyo afka maamulkaba in degmada nabadgelyadeeda ay wanaagsan tahay hay-adaha samafalka kuwa dawliga iyo kuwaan dawligeenba in aan gacmo furan ku soo dhaweynayno lana shaqaynayno xaqiijin doonana amnigooda gobolka ያው የኮንግረስ ህዝብ ጠንካራ ህዝብ መሆኑ በወሬ ነበርኩ ማቀው wuxuu yiri shacabkan boholgaras horey basan u naqanay waa shacab adag አሁን ደግሞ እድል አግኝቼ ለናንተ እዚህ ማየተይ ወይ ደግሞ መስማተይ በጣም ደስተኛ ነኝ ወላች waxa kale oo ku faraxsanahay yiri inaan nasiib u yeesho aan wali boholgaras imaan inaan maanta tan boholgaras imaan aan shacabka boholgaras la kulmo yiri ሶማሊ ህዝብና ኢትዮጵያ ayadoo shacabka Soomaaliya shacabka Itoobiyaanka ah የረጅም ታሪክ ወንድምነት በወንድምነት ay ka dhaxayso xiriir walaalnimo ee qadiimi ah ay ka dhaxayso ረጅም ዓመታት አብረን የሰራንበት ያለን ጉዳይ ነው aan horeen sanadaad fara badan aan hore soo wada shaqayn jirnay እየተደጋገፍን ያለን ጉዳይ ነው ilaa haddana waan isgarabsanaa oo waxaan nahay dad aan kala maarmin buu yiri ቀጣይ ደግሞ የበለጠ እንደምንደጋገፍ እርግጠኛ ነኝ waxaana aaminsanahay inta ayda mid ka sii badan oo ka sii adag inaan is sii kaashan doono mar walbana aan ahaan doono laba iskaashato yiri ያው
ጀምረዋል። dhanka maamulka degmada hadaan yiraahdaa shaqo fiican bay bilaabeen. እርግጠኛ ነኝ የእናንተ ታሪክ የእናንተ ችግር ሰምተው ሄደው ብዙ መፍትሄዎች እንደሚያስቀምጡ እርግጠኛ ነኝ። waxaan hubaa uu yiri maamulka hadda ka jira Boholgaras inuu dhibaato badan oo idinka hadda in haysto u dacwoon doono oo furi doono yiri. እኛ ደግሞ ምን ጊዜ ከጎናችሁ አለን። anagana aan ahaan doono mar kasta kuwa garab taagan buu yiri. ከሁሉም በላይ ደስ ያለኝ ነገር የኮንግረስ waliba waxaan aad uga jeclahay wax walba yiri shacabka Boholgaras ku nabadgelyada jecel. ጸረ ሰላም ኃይል ከጎናቸው እንደማያሰልፉ ayagoon waliba aan cadawgan aan dariska nahay ee al-shabaab aan agtooda soo marin karin buu yiri. ጸረ ሰላም እንደማያስጠጉ darisna u soo noqon karin ehel u noqon karin. ይሄ በጣም ደስ ያለኝ ጉዳይ ነው። taa waa midaan aad ugu faraxsanahay buu yiri. ለወደፊቱ ደግሞ አናግራችሁ መቀጠል አለባችሁ። waxaan in rajaynayaa buu yiri inaad sii adkayn doontaan halkiina aad ka sii wada doontaan buu yiri. waan idin እንደዚህ ከሰራችሁ ልማት ራሱ ይመጣል። haddii aad saan ku sii wadaan horumarkan asaas ka imaanayo yiri. ሰላም ራሱ ይመጣል። nabadgelyada imaanaysa. ስለዚህ ሰራዊታችሁ ከዚህ በላይ መጠናከር ይኖርባችኋል። sidaa darteed ciidamadiinana waa si hadda yihiin inaad ka sii adkaysaan buu yiri. መንግስትም በደንብ አድርጎ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። dawladdana way in garab taagan tahay waa taada kursiga la fadhida ayadana garab buuxin siin doonto yiri. ትኩረት እንደሚሰጠው ደግሞ እርግጠኛ ነኝ። inay garab insiinaysana waan aaminsanahay buu yiri. ያው ማለት የሚገባው አመራሮች በስፋት ስለገለጹት ከዚህ በላይ ብዙ marka wixii aan dhihi lahaa maamulka hortayda qaatay inta ayaan ku soo gabagabeynaa waad mahadsantiin. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gada Xasan Garbaharey ayaa la hadlay shacabka isugu soo baxay iskuulka Boholgaras waxna uu sheegay in wafdigu uu horkacayo ay ka wakiil yihiin maamulka Jubbaland dhankooduna ay Boholgaras uga xisaabsan tahay inay tahay degmo ka tirsan gobolka Gado waa Jubbaland waxaana ugu baaqay dawladda iyo maamulka Jubbaland iyo jaaliyadda Boholgaras inay ka qayb qaataan howlaha horumarineed iyo caawinta bulshada deegaanka oo u baahan gargaar degdeg ah waqtigan. sababtoo ah Boholgaras weli mayna dhicin muddooyinkii ugu dambeeyay ama dawladdii federaalka noqoto waxaan u malayn xilliyada dawladda federaalka ayaa waxa mar yimid aan u malayn 2013kii xildhibaan gaaran aan u malayn qiyaastii saasan u malayn mas'uuliyad ka sarreysa oo timidna ma jira tu ka dambeysana ma jirto. horta waxaad nasiib ku hesheen in galabta mas'uuliyiin Jubbaland ka socoto iyo wakiil Amazon ka socdo oo dawladda dariska ka naga socdo iyo adinkii baan isla fadhino. midaas horta waa ma hadda aad hesheen midda kale waxaan hadda anagu soo dhawaadaan leen annaga aan soo dhaweynayna galabta sababtoo ah waxa aad qabteen waxa aad u bogteen madax Jubbaland baad u bogteen waxaad u bogteen in la soo booqdo waan in nimid waxa cad gobolkan Gado meesha ugu cirifka ugu dambeeya inay tahay hadda oo koonaha oo ugu shisheeyo gobolka Boholgaras degmada Boholgaras. gobolkan si aad ogtiinba waa gobol ballaaran wuxuu ka mid yahay kow Soomaaliya bari waxa markii laga reebo dawladdii hore dawladdii dhexe waxa ku xiga waxa way gobolka labaad ee Soomaaliya ugu weyn weey haddana ugu sii weynta Jubbaland. gobolkan keligii wuxuu ka weyn yahay dawladaha Netherland la yiraahdo Kuwait Rwanda Djibouti iyo annaga waxaan isku nahay balacay ku fadhiday gobolkan wax kale iska dhaafay kheyraadka ay ku fadhido gobolka ugu fadhiyo maca dalika Jubbaland ka basi darabo. horta waa Ilaahay maadi marka kheyraadka asoo nugu intaas inaan ka faa'iideysan weyno oo balaca gobolka laga faa'iideysan waayo oo degmooyinka gobolka soo kor laga faa'iideysan waayo ma ahan degmooyin keligii la magacaabo ma ahayn degmooyinka ugu dambeeyay markii dalka u burburay waxa weeye degmadan 2012 bay dawladdii bay ahayd ayadoo kale waxa la mid ah degmooyin kale oo yar yar ah Yurkud waxa la mid ah Ceel Cadameen ma ahan kuwa laga naxo waa kuwa lagu farax waxa ku soo kordhaya dadkii badanaya kheyraadka badanayo waxa weeye isdhexgalka badanayo waxa gobolkan gobolka ugu faa'iideyn wado meeshaan waxa iska tuuran cusbo banaanka iska taal waa kheyraad qayb ka mid ah Ilaahay meel ka badi meel camba iska tuuran meel waxa tuuran geedo meel waxa tuuran diamond ba iska tuuran gobolkan horta waa gobolka Ilaahay uu maartay intaas oo webi
iyo bad iyo dhan walba oo Jubbaland oo kheyraad ka siiyey horta kuwii intaafacsan Allah naga dhigo annagu waxaan kugu nimid dawladda Jubbaland hadda wixii ka dambeeyay maanta waxa weeye hadday ciidan ahayd iyo hadday ahayd waxbarasho iyo hadday ahayd dhan walba waxa weeye galabtu wixii ka dambeeyo waxaad ku leedihiin oo si rasmi ah ugu leedihiin xiriir toos aad ku leedihiin qof loo marayana ma jiro systemka aad u marteen waad ku guulaysateen systemka aad u martaan waa kan galabta aad u heshaan nasiibka waxaana in ballan qaadayaa wafti annaga naga sareeyo inuu imaado wiigaan mar labaad midda saddexaad baaq baan halkan ka jeedinayaa waxaan baaq uga jeedinayaa hay'adaha dawliga aan ahayn iyo kuwa dawladaba iyo dawladda federaalkaba iyo Jubbalandba intaas baaq baan u jeedinayaa degmadan in inta qof bini aadan u baahan yahay inay u baahan tahay oo hay'adahaasi hadday caafimaad noqoto waxbarasho hadday noqoto biyaha hadday noqoto in wax laga qabto hadday noqoto horumarin hadday noqoto jidad hadday noqoto caafimaad oo caafimaadka kala qaybsan hay'adjiin hadday noqoto intaba waxaan baaq u jeedinaynaa hay'adaha samafalka iyo dawladda federaalka iyo Jubbalandba inay la soo gaaraan degdega bohol barwaaqo weeye barwaaqadan waxa way wiilkaas yarka ah oo hadda bini'aadanka sidoo kale nasiib badan yahay nin yar oo qalbi fiican oo dadka iyo ummadda iyo nin kasta oo socon kara la socon kara ayaad hesheen oo meesha laga gudoomiye waxa way bini'aadanka haddii uunan fahmin waxa carrada ka jira lama qabsan karo annaga hadda maanta aan ka nahay Jubbaland wakiil haddana waxaan in la hadashiinina markaan shirka dhameysano madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland farataag baan la hadashiinina dad walaalo ayaan nahay dad jiraan baan nahay dad deegaan baan nahay walaalo baan nahay Soomaali baan nahay waxaan rabnaa in maaragtay wixii xun oo si xun u socdo la qabto wixii maaragtay fiican la qaato anigu waxaan hal eray baan ku oo shabaab ay ku gabakirin sidaad gacanta midigta ugu hayseen haddana u haya annagana hal arrin oo kale ayaan ku dariyaa maxay tahay waxa weeye ciidamada weeye ciidan haddaadan u hayn tasiilaad iyo dhaqaale iyo mishaar iyo tuuto u gishto macnaha ma xakameyn kartid waxaan ka codsanaynaa annagana inaan Jubbaland la aadno tuutaha iyo lacagta aan ka raadino ciidan midaysan oo difaaca gala oo amniga sugana aad diyaarsataan oo annagana dhaqaalihi baad goobno waan ka codsanayaa mahadsantiin assalaamu calaykum ugu dambeyntii waxaa qadka taleefanka kula hadlay shacabka isagoo jooga Kismaayo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag waxaana uu sheegay in waqti dhow uu tagi doono Boholgaras ayna heli doonaan reer Boholgaras xuquuqda ay ku leeyihiin maamulka Jubbaland dhammaan maamulka degmada Boholgaras leh odayaasha reer Boholgaras leh aqliyada duqooda waxgaradka reer Boholgaras leh aad baan u salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh calaykum salaam waraxmatullaahi waxaan filayaa insha Allah dadka nabadda jecel ee isku soo banaabaxay hawshan Jubbaland ay ka qayb qaataan dhismaheeda iyo maamulkeeda insha Allah tacaala anigu ku hadlayo magaca madaxweynaha Jubbaland magaca xukuumadda Jubbaland iyo magaciigaba Boholgaras la soo dhaweynaa
akhyaartana daawanaysa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan waxaan idinla socodsiinaya anigoo maxamed cabdikariin macalina dhinaca kaameraduna barbaashida tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.